علي عاتمية والبذية ترشبادي صونة قطمية محل حسين بيبة مية أسد حاجو أسد حاجي مية عاصم بوس يحيى انتر مياه منس جوز ملياي يحيى انتر ولا البذية مفاتي مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري بعد أصحابتنا وطناها مقدشو ما أنتوا حاجونا برت بنادر هدونا أنا يمكن عاصم حاجونا برت بنادر وحان ربنا نسوق الدنو برنامج كسوء hambaliyadu waxay tahay waxaan u sheegi doonaa casar horta hambaliye marka lagu soo diro waxay qurux badan tahay inaad fadhiga ka kacdid oo istaagto aad u istaagtay oo qurux badan tahay waad aragteen waxa hambaliye noo soo diray Atrishbaadiyo Salma la jeclay hambaliye kale noo soo dirtay waana sheegnay talo hambaliyada soo dhiman yaa waad ka isdhuuyaan horta fiidiyooyin ka horeeyay adin qashnay macnaha waxaan aanay qofku yahay arimaheena Suuriya arimaheena miya munir ali عاتمية والبذية ترشبادي صونة قطمية محل حسين بيبة مية أسد حاجو مية عاصم بوس يحيى انتر مياه منس جوز ملياي يحيى انتر ولا البذية مفاتي مركا سوق الحاج قلنا جدا بهرت بنادر قلت قرص بدنا جوجنا ولا لين وايد هرتاجين سوداي هنا موقعك قد بياربانو إنه يا بدن راح نطلع مفهمتي مركا موقعك إنسو قد بينو قفكو يهي أنا ضاوض وي وحماشان سولو بيناينا ولا لهنا قاليقا عاسي iyo deeqo mataana muqdisho waxa leeyahay hore u socdo insha Allah waxaan rajeenayaa channelkiin inuu noqdo channelkii adduunyada ugu hormaro insha Allah waxaan leeyahay keep going walaalahay soo socda واتهاي موقالك واداوتين قفكو يهنا واركتين هذا Soomaaliya hortiina firi maxsada magac maxlaw biyo تينا فري إنه فرق درتهم أنا أنا ما عمله فرق فرق ما الله وافيرنا نقعنتها فيرنا هل فرق درته هل فرق درتهم أنا هل فرق درتها تينا فري وحرام لا وويديننا حدي فرت وحكوينه وويديننا أنا حالنا جعمها صفر مع هذا walaasheen aad u maasantahay hambalida qurux badan oo soo dhiibtay waa ka qabanay sida inuu soo hambaliyeen aan ugu istaagnay walaalaheen ka horeeyay ayaan kaaga qabanay hambalida aan soo dirnay inta badanna dadku waxay dhahanniyahow maalmahan hambaliye bidiniina aaw wixii kale sababta jirto sheeg horta mid jirto anaga hambalida waxa soo gudbinaynaa horta qof wax ku soo diray hadaa hiistid faa'iido ma lama fahanti marka saddex qof horta hambaliye naga soo gaadhay oo reer Malaysia saddex gaadhay naga soo gaartay mar qaarkood waxa waaye Soomaaliya isku lahayd badiyeen faanteen marka naga soo gaartay hambaliyadaas anaga soo gudbin waxaan isdhaanay muuqaal muqo fiican soo gudbisaan qodobka la wajira marka qodobka la jiro wuxuu yahay qodobka wuxuu jira bil Ramadaan ku jirnaa bil Ramadaan xataa xaqsiin muhiimnaa jirto anaga team ma la shaqeyn jirnay teamkii anaga xoogaa samsana dhacay faanteen marka arimaas يحوجا يمكن بقشك قاعدة دريمة عقبات جرو أوجود معناها مقال أسوق الدويني تنكلها درتا معناها تيم كلا أصلاً حد يحكي بلاود إيش يقول يوم حكوا هذا يو وحول بوم معناه مكسر يسوق بكر إنه إذا في حدينا كشقينا نادو له هذا أنا هنسدين ده كان ده سيحضوا واي واحد مصور ده يعني سدين أنا مقدشو شقاك سويسين بلنتا عيدين قاعدة مقصود بحنا سدح سياوات في ياش حنبليدا siyaabada kalena waxa waaye si idin sheegay walaalkeen kalgur teamkii kalgurnay qodobka saddexaad kuma dheeraanayna qodobka saddexaad bil Ramadaan oo lagu jiro raal aad beerta banaadir ma joognaa bil Ramadaan oo lagu jiro aan soo gudbin karin muuqaalo inta badan dumarka nala shaqeynayay waxay ku maqan yihiin afar kariyow tan kale macnaha hadana waxa jiro bando waa jiro حمر هذا مركي الله هذا وحاول سامنت هذا مثلا رمضان كان بدنا dadkana socodkuna uu yar yahay markii magaalka loo fiiriyo taas hadana culays waa ma fahanteen laakiin saas ay tahayna ma aragtay waxa isku dayayna inaan fiidiyo soo saarno su'aal ku weydiinano maxaaniyo waxa keeni karin oo hablaha reer Malaysia hambale ku soo diraan ijaal bixinayo aan fahmi lahaay فاهمين هذا كان فاسي واحد لا متقانا أنا ما أقول عن روح معهن أقول شيء قشرة جرو قشكو حاول متقانا وأنا قلبي قف كس قلبي وكفي عام مقتة يبدأ سبحان الله قلبي في عن هل من قدر
dadka qaar waxay leeyihiin dadkan way is yaqaaniin ah anaga midaan ii sheegana muuqaalan dib u fiiri karaan waxaa laga yaabaa hataa gabdhaha qaar inay magacyadeena dib ku noqotay xitaa waxaa jira muuqaalkan kikoori oo salmeen soo duubeeyay magaceega dhan bay ku dhishay macnaha asliinan dad is yaqaano oo hor isku yaqaanay oo macnaha oo garab la siinaa camal yaa la isdhihin inaga danada sameeynay muuqaala sameeynay markaan muuqaal sameeynay waxaan dhacay in la is arkay kadibna dadkii wada hadalnay markaa wada hadalnana dhaheen waxaa waaye horumar laakiin dad oo macnaha meel kale ka raadiyeen anagana waxaa waa idin garab taagannahay xitaa hadda muuqaalka daawanaa dadka magaceega maxaa ani عاصم هلا منطقة عاصم أنا عاصم أنا مجاعي أصلا مهندس نجا مهندس مهندس قم توصل في الجلال الله نجا ويقول ليش مهندس كلها مهندس حاندس لكن مهندس مجاعي أصلا ما بقى طابن خالني مهندس ما بقى طابن مهندس رتاح المهندس وقت يعني مسكح في عنا بس هو صار أخانا ما قطع صوت عضية marka macnaha muhiimadu waxay tahay horta saddex qof hambalada tina fariin way qaweysay muhanza qaweys horta deeqola muslim marka warkan ku sii dharaanano saddexda gabdhood ee hambalada noo soo dirtay waa horta qalbi fiican si qurux badan ay noo soo dhaweeyeen waana maasan yihiin dhamaantooda inta noo soo dirinna way maasan yihiin iyo inta had janalkan subscribe saartan aad u maasantiin ma fahanteen hadda hambalada ma qaba karnaa ما hambalada waa dhaafnay wixii hambalada aad soo dirtay dhaafta hambalada ka qabay caadi wixii hambalada aad soo dirtay ma aragtay madaxinu saariyay ma fahanteen mid kale ugu duraxaynaa caawa barnaamijka duuna xogaa hadaa buuq iyo macnaha iyo waxa aan bashana karaal naqda macnaha intaan ka badan warmooda karna ma fahanteen aadaanka noo sugoonaa baahi noo heesaa saddexda gabdhood waxaa leenahay salmo tiriisho baadiyo tiina ferey walaaladeen waa idin jecelnahay annagana saa noo jeceshihiin asxaabteenna u jeclaada saa noo soo dhaweyseen waa noo soo hambalyeyseen si la mid ah asxaabteena ayaan idinkana idinku hambalyeynaa idinku dhaweynaa aan idinku mahad celinayna ma fahanteen asxaabteena jeclaada soo hambalyeyn maxaa ka wada naqaanaa asxaabta wankeena gaarsiiyey u hambalyeyn ma asxaabta wankii horta waxaa waa dad qaali nugu ah ma fahanteen anaga dhiirigelin oo tahay si korka aad saaraysiin anaga farxadeena waay marka waa maasantihiin qiimo taanaa muqdisho waa idin leh afur wanaagsan nabadgelyo